قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جابر بن حيان wuxuu dhashay 721 miilaadka waddanka Iran magaalada Toos. Jabir bin Hayyan wuxuu noolaa casrigii Cabbaasiga wuxuuna ku takhasusay kiimikalka ama alkiimiya. Jabir bin Hayyan wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee isticmaala kiimikalka sidaa daraaddeed waxaa loo bixiyey aabbaha kiimikalka. markii la arkay fikradiisa iyo cilmigiisa cusub culimada diintu way la yaabeen waxayna yiraahdeen waa saahir diintana way ka saareen. Al-Farabi Abu Nasr Muhammad Al-Farabi wuxuu dhashay 874 wuxuu ku dhashay magaalada Farab ee waddanka Kazakhstan. Farabi wuxuu ka mid ahaa nimanka ugu caansan bartay cilmiga falsafada ama philosophy. Wuxuu kaloo ku takhasusay cilmiga dhakhtarnimada. Marka laga tago Aristo wuxuu noqday Farabi macalinka labaad ee falsafada. Wuxuu yidhi ibn Cimaad culimada diintu xilliga waxay isku raaceen Farabi inuu gaaloobay cilmigiisa daraaddeed. Sina Abu al-Ali Hussein ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina wuxuu dhashay magaalada Bukhara waddanka Pakistan sanadka markuu ahaa 980 miilaad. wuxuu ahaa dhakhtar aad iyo aad u fiican wuxuuna qoray buugga loo yaqaano qaanuunka dhakhtarnimada sidaa daraaddeed waxaa loogu magac daray aabbaha dhakhaatiirta. culimada diinta ee xilligaas waxay go'aamiyeen inuu yahay mulxid diintana way ka saareen. ibn rushd أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد وحول شيء كن يبغلي اللي حيلا باتنكي ميلادك مقالة قرطبة دولك اللو يقاني حلقة الأندلس عام كن نقضي شرحات دي كتابك أرسطو حلقة بوغاك تيسا آد لوغا يبسدي ودمضى يوروب نفتكي سقري بوغاك آد يو آد فرمضان أو حلقاس آد يو آد لوغا يبسدي ودمضى يوروب أو إلى يوم ما انتداس أين جوغنو بوغاك تيسا لغدقو ودمضى كالدوان jaamacadaha Yurub. culimada xilligaas waxay go'aamiyeen inuu yahay mulxid diintana way ka saareen. Abdul Haytham Abu al-Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham wuxuu dhashay 965 casrigii loo yaqaanay casrigii Cabbaasiyiinta. Ibn Haytham wuxuu ahaa caalim aad iyo aad looga yaqaano caalamka Islaamka iyo wadamada Yurub. buugaagtu ay tiradoodu dhaaftay 200 oo ilaa iyo maanta laga dhigto jaamacadaha Yurub. Ibn Haytham kama badbaadin seeftii culimada diinta ee xilliga la noolay waxay ku tilmaameen inuu yahay zindiiq diintana sidaas uga baxay dhiiggiisuna xalaal yahay. Raazi Abu Bakr bin Muhammad bin Yahya bin Zakariya Raazi oo dhashay magaalada Raay ee waddanka Iran taariikhdu markaa 864 miilaadka. Raazi wuxuu ka mid ahaa culimadii ugu muhiimsanayd ee ay soo bandhigtay caalamka Islaamka oo xilligaas wuxuu qoray buug magaciisa la yiraahdo Al-Hawi. buuggaas uu keenay wax walba oo laga qoray dhakhtarnimada xilligii Iqriiqa ilaa iyo xilligii uu joogay. buuggiisaas oo ilaa iyo maanta lagu dhigto jaamacadaha Yurub 400 oo sano ka bacdi wuxuu noqday buug muhiim ah ama marjac muhiim ah oo ay dib ugu noqdaan dhakhaatiirtu meel walba oo ay joogaan. caalimkaas dunida oo dhammi la dhacday culimada diinta Islaamka waxay u arkeen inuu yahay mushrik ama mulxid sidaas oo ay dhiiggiisa u xalaaleeyeen sida halkaas oo lagu dilay Raazi oo naftiisa ku waayay cilmi daraaddeed. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.